qof kasta oo xaflad weyn dhigaya oo dhahaya waa cibaado nabiga lagu xusaya su'aalahan waa in la weydiiyaa su'aasha koobaad ihtifaal bil mawlid rasuul sallallahu alayhi wasallam dalashada nabiga fiiriya qofka hadduu meeshii la isku haystay waxa lagu yaqaanaha leeyahay qofka baadilowga mas'aladii la isku haystay mas'ala aan hayno ka hadla nabiga in la jeclaado mu'miniintu iskuma haystaan qof walba oo nafta ku jirta aan nabiga ka jeclay nabiga mar rumayn waa waajib ma aha mas'alada la isku haystaa nabiga in la jeclaado nabiga inuu ugu salliyo sallallahu alayhi wasallam ma aha mas'alada la isku haystaa qof walba mu'min ah waa inuu nabiga ku salliya kaan ku sallin salaadii subaxa tansiixme ma aha masaa'ilkaas ee waxa la isku haystaa bishaan xaflad weyn inta la dhigo qasaa'idka la aqriyo illa ira nabiga la xusa su'aalahan hala weydiyo marka waxay tahay su'aasha koobaad xafladaas in bishaan la qabtaa ma macsiya mase waa daaco ilaahi loogu dhawaado u fiirsada ma daaco ilaahi loogu dhawaada mase waa macsiyo haddii uu yira waa macsiyo warkii waa dhamaada Soomaa khilaafo waa dhamaada macsiyo la iska daayo hadduu yiraahdo waa daaco ilaahi loogu dhawaado su'aashaana la weydiina nabigu ma ogaa sallallahu alayhi wasallam bishaan rabiicul awwal xaflad weyn soon kama hadlayno weliga ha ka leexan misalada laga hadla qofka hadduu ka leexdo misalada laga hadla waxa weeyaan waxay daliil u tahay inuusan dariiq bahayn nabigu haddii yiraahdo waa daaco su'aasha labaad maxay tahay haye nabigu daacadaas ma ogaa mise ma ogay hadduu yiraahdo ma uusan ogayn nabigii jahli u nisbay waana gaalnimo waa gaalnimo hadduu yiraahdo waa ogaa nabigu sallallahu alayhi wasallam waa ogaa inay daacad tahay su'aasha saddexaad la weydiina waxa la leeyahay waa dhamaatay nabigu cilmigaas mana soo gaarsiiyay oo ma saxaabadiisii ila saxaabada cilmiga nabiga ka soo qaaday mana yiri bishaas rabiicul awwal marka la gaaro xaflad weyn dhiga iida baldega dhalashadayda weyneeye cilmigaas mana soo gaarsiiyay masana ma soo gaarsiin oo waa la aamus hadduu yiraahdo waa la aamusay nabigii duray ilaa nabigi maxaa la yiri yaa ayuha rasuulu balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalati wa diinin nabiguna waa gaarsiiyay diintii nabigii khiyaano u nisbay hadduu yiraahdo nama soo gaarsiin nabigu waa ogaa inay daacad tahay nama soo gaarsiin nabiga naqiyaan waa midda imaam maalik uu leeyahay maribta da'a fil islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna muhammadan khana risala qofka diintan islaamka bid'a ku soo dara ee ka aamina inay tahay daaco wanaagsan waa qof ku andacooday nabi maxamed qiyaanay diinta ilaa allah sheegay inay kaamil ahayd hadday marka diintii ka mid ahayd asuusan soo gaarsiin nabiga qiyaanay weey qof nabiga qiyaano u nisbeeyna waa kufr su'aasha soo hartay waxay tahay hadduu yiraahdo haa cilmigaas waa na soo gaarsiiyo hala dhiga xafladdu yiri khalaas intaha al-amru waa dhamaaday haatu burhanakum in kuntum min as-saadiqiin waxa la leeyahay natus kitaabka ay ku taal hadaa run sheegay inuu keenana waxa uga fudud in la yiraahdo rati neefgeela ma aragteen irbada daloolkeeda gali taasa uga fudud inuu keeno qay ku taala laga keena qof la yiri meel nabigu yiri xaflad ha lagu dhigo keen waa qof la yiri rati irbada daloolkeeda gali ma la gali kara ma laga keeno ma keen hadaa tunu sheegay illa diintii nabigu mallumin waxay ku taala saxiixa kutubta saxiixa sunankay ku taal masaaniiday ku taal macaajintay ku taal باب احتفال بمولد الرسول كيف قال وهي قلت على كتب ضمن القرآن لكن النبي محمد يري ودبالدقه كتاب قلت على مجرو بين هواسه دواس كبيكرا كما هذا هنا بين هواس اي واحد شيء حديث صحيحه انت اصوحا نسلي هداد فهمته مسألة سوى كاهرت وركيت وانا الدوودي